agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cabdullaahi Adaf iyo furi aqoon isweydaarsi ka saabsan dhab u heshiisiinta kaasi oo ka qayb galeen waxaana ku mid ah howlwadeenada wasaaradda dowlad goboleed koonfur galbeed oo encourage wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta koonfur galbeed Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka Cabdiraxmaan Xaashi Jibriil. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxa farxad noo ah maanta inuu nooga furmay magaalada Baydhabo kulan wada tashi ah oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka oo ay qayb ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. kulankan ujeedadiisu waxa weeye in halkan aan u nimid wada tashi ku saabsan hanaanka dhab u heshiisiinta qaran. hanaankan oo ay waday wasaaradda arrimaha gudaha muddo 4 sano ah wuxuu ku jiraa xilliyadii ugu dambeeyay inaan la tashano dadka dhalinyarada aqoon-yahanka haweenka magaalada Baydhabo deegaanka koonfur caasimadda ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaana arinta uga gol leenahay si qorshahan uu u noqdo qorshe qaran oo dhameystiran oo dadka Soomaaliyeed oo dhan laga tashaday marka qorshahaasan u nimid halkaan inaan mataqaanaa maantay iyo berri aan wada tashigan wadno dadka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ayaa ka tala dhiiban doona annaguna waxaan ballan qaadaynaa talooyinkaas inaan mataqaanaa qaadno oo aan ku salayno qorshahan dhameystirkiisa. qorshahan markii la sameeyay waxa lagu saleeyay dhaqanka Soomaaliyeed waxa lagu saleeyay diinta Islaamka waxaana lagala tashaday dad badan oo khubaro ah oo Soomaali ah marka la tashiyadii ugu dambeeyay baan ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inuu si fiican noogu soo gabagaboobo la tashigan dabadeedna aan soo dhameystirno la tashiyadii kale ee maamul goboleedyada kale si qorshahan uu noqdo qorshe qaran oo dhameystiran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay fikradahooda ku darsadeen. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed Mustafa Sheekh Cabdullaahi Adaf oo si rasmi ah furay shirkan iyo kula dardaarmi ku qaybgalayaalka shirkan iyo markaasay ku faa'iideystaan muddada kooban uu shirkan dareer dhammaan wasaaradaha oo shaqaalaha ku socda iyo shaqaalaha oo wasaaradda arrimaha gudaha qaybta waxda oo dib u heshiisiinta iyo ururada bulshada qaybo jashal duun iyo xafiiska madaxweynaha tiimka socda gaar ahaan tiimka oo dib u heshiisiinta aan qaabilsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامكم بعدي صبوركم كموغدا إن شاء الله ويبرهجيانه انتي أو كفاية سودون تنقلكم أو وذا تشجع والله كدياري دونا قرشها هناك لابو هشيسنت أو هير دولة قبلت ويني الروجه دولة الفدرال كله كل روجه على التليسر أو برنامجنا أو لابو هشيسنت iyo agaasimaha waxda oo arrimaha dib u heshiisiinta oo federaalka wasaaradda arrimaha gudaha runtii wayba qayb ka ah arrimaha federaaleenta intii wal kasta la hadaadaji qorshahan hordhaan way bahay qorshe oo heer qaran oo qaranka lake ek oo federal level ah haatan wayba la bilaabay state intii la hadaadaji qorshahan oo dhab u heshiisiinta state markii uu sahnayn deeroon insha Allah way rajaynahay markii oo isin wada tashi la sameey wal badan oo raayin la aruri ilaa iyo heer way badeersiyaan oo insha Allah degmadiyana qaadas ilaa iyo heer tuulada ilaa iyo heer xaafadeed ilaa iyo heer tabeel la kadeero markay fadana intii oo qorshahan oo dhab u heshiisiinta intii uu la daadaji insha Allah mahma wes oo la talay sarka ya barnaamijka safeelasin sharaxa doona qaabka federaalka iyo qaabka la marsi qorshahan oo hanaanka oo dhab u heshiisiinta heer qaran stage-dii sahmaray heerka tusro kulli insunin sheegdoon Abdursaaq kulli way buwaa wasaaradda arrimaha gudaha oo dhankaaseen qaabilsan la taliya marka safeyle iyo way baan rajay lamada maalmood intii sin ka faa'iideyso doonta waxyaabaha isinaaseen xulay ilaa 30 qofood walaal xulay way buwaahe numbernan ka kale ama ka faa'iideeyay ama contribution failay la helo yalla ka xuli macnaha dadka marka way rajayna insha Allah isin intii contribution failay dhiibi doonta wasaaradana markasta way baay insha Allah way si dhow shaqay doonta wasaaradda qusay arrimaha oo dhab u heshiisiinta iyo hanaanka dawladaha hoose dhamaantii la shaqay doonta
iyo civil society insha Allah gabagabadii uu dhab heshiisiintu qorshaha ilaa iyo halbeegi badan leh ilaa iyo 5 halbeeg oo kale kulli state level kan wala uu ka dhigi lahayn wala sayti taladin iyo tusaalooyinka ku bahdoona markaasaytii insha Allah unina way saar doonaa siyaasad oo heer state ah qorshe oo heer state ah oo ku qotomo dhab heshiisinta iyo dib u heshiisinta intaasaytii arayga inta badan wala isticmaalo jiray dib u heshiisin la isticmaalo jiray arayga dhab u heshiisin kooyoshay taariikh yara iyo waybalaya history oo background ilay kulay way bas sheego doona Maxamed Awas iyo teamka kale yasin sheego doona ma kordhiyo way rajayntiisin ka faa'iideysan doontaan shirka kaliya kelimada furitaana ka lahay wasiirka arrimo kale ka mashquulsan intii wasiirka furahayti marka waysan laha shirka nin furinya waana ka faa'iideysan Ali Ilyas Abdullahi warbaahinta dawlad goboleed Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.